وهجاج ولي برامج كاني هرجلك أيام كون كذا شرنا رجع كل دقن مجالة وشير أيا كعبنا يشرق الله يشجعن إن دمرك مجالة سي أي ودجن بقلال رجع كواس والله جسري بكرنما بين أبورا شاكر ما سل حريرته وح مجالة وشير ناقص صدري حسين نور علموجي وحل قربة أيانتو واحد قبتو ومجالة وجير waxaa ishayo guuxa iyo masaafaha dheer ee baabuurta waa mid ka mid ah gabaarida lagu galbinayo uuri ay iscalmadeen saygeeda oo waqti badan ku taamayeen in ay maalin un wada aqal galaan balse sheekada lamaanaha iscalmaday waxaa ku hoos jirto sheeko kale oo salka ku hayso qiyaano iyo dhagar loo maleego ragga aruuska ah ee qarashaadka badan ku bixiyo baaritaanno badan kadib waxaa noo suura gashay in aan helno mid ka mid ah gabdhaha ayada qiratay in ay shirqool u maleegtay saygeeda oo hadda ay u hayso 3 canug gabadhani ayaa naga ogolaatay in ay nala wadaagto sheekadeeda si ay noola qaybsato qaababka loo fuliyo dhagarta inta badan loo maleego ragga aruuska kuwaasoo islahaayeen waxaad jihada saarteen nolol farxad iyo reen ay ku dheehan tahay waxaan si ku meel gaar ah u qarin doonaa masawirka dhabta ee gabadhani si aysan dhibaato ugu dhicin ayada iyo saygeeda waxaan inta uu barnaamijka socdo ugu yeeri doonaa Xaliimo oo aan ahayn magaceeda dhabta ah Xaliimo waxa ay inoo sheegtay in rag badan oo Soomaaliyeed uu ka mid yahay saygeeda loogu been guuray bikranimo aan jirin ayada oo loo isticmaalayo kimikaal casri ah oo lagu yareynayo xubinka taranka ee dumarka Xaliimo ayaa ayada noo sheegtay in bikranimadeedii ay ku weyday wiil uu xiriir kala dhaxayni jiray inta aan la guursanin ka hor laakiin ay go'aansatay in ay isticmaasho daawadani si ay u qanciso saygeeda oo aaminsanaa in xaaskiisa uu guursani doono ay tahay bikro si uusan shaki u soo dhaxgalin guurkooda 7 sano gudahooda ka shaqeynaaye 6 sano ilaa iyo 7 sano waa waqti aad iyo aad u dheer marka magaalada Wajir waxa jirto oo wali aan soo shacbixin in maaragtay dumarka waqtiga la digaalinayo saloonka la geenayo qalab loo isticmaalo ay jirto oo xubinka taranka lagu yareeyo si gabadha ayada habeenkii la soo galbinayo ugu muuqato inay tahay qof aan wiligeed la isticmaalin marka arinta ayada maxad ka dhiilahay oo beenaynaysa misana waa taas way jirtaa run waaye mid 2 sano ay socotay sanooyin sano u socdeen sanooyin sidan ay u socdeen waana run taas way jirtaa marka arinka dumarka uu kaliya ka warahayaan raggi kama warahayaan anu kale og waayo rag waxay ogaadaan ma jirin anu kale gudahayna ku sameeyno marka qofka markii uu wax qalabkaas uu isticmaalo mii u muuqanaya inuu maaragtay yahay qof oo sidiisii hore ku soo laabtay oo kaleeto habeenku ugu horeysay waa u maleynay gabadho sidii hore leh ahaana u laan marka habeenku ugu hore wuxuu u maleyn karaa in maaragtay wixii dhan ay sidooda iska yihiin gabar cusub camal waa gartay gabdho baqaa jirta maaho oo ninka balanka qaadantay ninka loo tagaynay waana dhacday waayo sidaan gabdhoonahanaba inta meel ilana lagu haysto marabna sida darteed ayaan u sameeynaynaa arintaas lama dhihi karaa gabadha qiyaanada ay wado inay meeshaas ku joogsan karto oo mar horeba rag kale ayaa ninka ayaga gabadhii u guursaday la soo isticmaalay ma liis dhihi karaa gabadha markii la guursado ka damba waxyaabihii hore oo ay u soo martay inay ka garwaaqsato oo ninkeeda kale ay ku ekaato taas way jirtaa waayo hadda balse oo nin heshido ninka guur la gashay dareenka loo nin aadad ma qabaysid ku qarkooda iska sameeyna jirtaa hadii ka waran gabadha ay ileen waa qof horaan wax u soo arkay ninka hadda ay haysato oo xalaash u qabo ay ku qanci weydo marka loo eego kii u bilaabo ku laabato waxyaabihii hore ay u soo martay marka loo eego taas makasa qaar ka mid ah shacabka ayaa sheegeen arrinkani ku soo korodhay magaalada Wajir inay ku tilmaamayaan fasahaad walow ay sheegeen in xilliyadii hore ay jiri jireen qaabab kale oo dabiici ah oo lagu yareyni jiray xubinka taranka ayadoon la isticmaaleynin wax daawo ah amba chemical bintu waxa way maamoodinka maama sacnaysa jirta naagaha kama buulo joogada camal maama sacnaysa jirta gabdhaha oo maamoodinkan waayelkan noqono dhaxda gabdhaha sacnaysa gabdhaha qashanka iyo qurunka iyo ka soo daaysa la dhaha
laakiin maamada idaha waxyaalo kalena way hagaajisaa way soo islaantaad hadda markay isla fiktiin meesha la isoo hagaajin oo la isoo dhaqay ku leedahay adigu israacdeen gudaha ay la gashay saan hoos iski walaxa lagu soo hagaajiyo waa la soo qodbay waa soo noqday ha waa la isoo hagaajiyo waa qurunkan waa iga soo daasay lagu dhahay ninka ragga qurunka laga soo hagaajiyay leemoy waa soo qodbay ma dhahayn taas hore aan u aragnay yani waa laba meel yani liskii dhiji ha oo baalka dad weynay waa la yareeyna markaan islaanta waxay noqonay bikra camal laakiin tan daawada la sheegay aniga waa ikow tan haddaadana imaado waa fasaad kale maxaa yeele waxaan hadda bacrimin baa hadda wax la sheegay bacrimin waay bacriminna bini'aadanka ma ku fiicna bacrimin qofka bini'aadanka sidii ilaahay ugu talagalay waa inuu ahaada hadduu sidii wax asagii lafadiisa u isbedbedela oo saad rabta aad waysa haddii lafadaada waxaa waaye wax kale ku gela marka sidii runtii ah qofka bini'aadanka qaabkii ilaahay ugu talagalay wax ka bedeli kara ma laha waxyaalaha hadda bacriminta oo hadda soo galay Wajir waa wuxuu rag isku dili lahaa sidii runtii ah nafta iskaga goyn lahaaba arrimahaas laga waantooba dib damana loogu noqon ninkii lagu arkeen arrintaas tilaabaha ka qaado dawladda kuku ayaa waxa uu isaga noo sheegay in arrimahani aan horaan loo aqaani jirin balse haatani ay ku soo bateen magaalada waxa uuna sabab ugu dhigay in guurka qarashaadkiisa uu cirka isku shararay ayadoo la sheegay dhalinyaro badan oo guurdoon ah maanta in ay doorbidayaan inay gogol dhaaf sameeyaan si aysan faraha ula galin guurka qaaliyoobay oo sibiqda noqday saan hadday noqoto magaalada dadku waa raggii oo yaraaday naagihii oo lagu dhisanay 1 milyan bar 1 milyan oo guurka hadana la sii qaalay cawada naagta markii la dhisay 100 gaaraysa daba dhiga kuna ma qaba haye 120 kun sariir joogtay 150 kun la keen 150 sariir gadaa lagu dhahay 150 sariir inta iska gadi 100 kun aroos ku dhistay laadee masaakiinaad iska tahay 100 aroos ku dhistay aan saan u soo wareegayaan soo helay 50 ko ama 40 ko ama 70 ko ama soo helay dadkina waxa gabadhii la tusay waxa la ninka sariirtaadna gadhe aan waxaan baray sariirtan 8 kun ama 6 kun inaan gado naagta horta meesha ka u dumi idana taasna waa jirtaa Wajir Sheekh Cabdiwahaab Cusmaan oo ka mid ah culamaa u diinka magaalada Wajir ayaa qabo in arrinkani ku soo badatay ismaamulka Wajir ay sabab u tahay guurka uu qiimihiisa cirka isku shararay isaga oo bulshada ugu baaqay inay fududeeyaan guurka si loogu gudbo arrimaha noocan oo kaloota ah wuxuu noqday shay qaali ah oo aan loo dhawaan kareynin ayuu noqday marka guurkii markii la waayay waxa imaaday marka zinadii iyo gaabsigii iyo gogol dhaafkii hadda aad sheegaysay yaa dilaacay kuwii markay dilaacayna si hadhow marka recovery loo sameeyay yaa marka bikra fake ah oo marka jelly iyo lagu sameeyay yaa la hagaajinaya waxa soo dhan runtii waxa keenaya guurkaas qaaliga ah ayaa runtii u sabab ah gabdhuhu diinta way akhristaan madrasooyinkay ku jiraan iskuulay tagaan diinta ilaahay mar walba way dhageystaan ha iska daayaan isku dayashada ay isku dayanayaan oo leeyihiin heblaayaba kuraasta loo dhigay ma aragtay 500 kun ay joogta 300 kun kursi kuraasteeda laga soo bixiyay anigana kuwaasoo kalaan raba heblaayaan ku dayanaya waxa ku dayashada ah waa inay dadku iska daayaan guurka ujeedadiisu waa in meesha labada qof ay ilaahay ku caabudaan la hagaajiyo meesha inuu ilaahay awlaad ma aragtay dalka iyo diinta iyo dadka anfacda inuu ilaahay meesha naga siiyo ya ujeedooyin waaweyn iyo goolkaas way goolka guurka ma ogid dhalaal yar oo kuraasa iyo maarta armaajado iyo muraayado meel taala iyo material yar oo saasoo kala arintu waa ka weyn tahay Sheekh Cabdiwahaab ayaa ugu dambeyntii waxa uu sheegay in dalladda ay ku bahoobeen culamaa u diinka magaalada Wajir ay mustaqbalka dhow bilaabi doonaan wacyigelin ku saabsan guurka ayada oo lagu haminayo in la hergeliyo barnaamij dowrkeen ugu weyn jazakallahu khayran wuxuu noqon karaa inaan annaga wacyigelin wax la yiraahdo aan sameeyno bulshada aan baraarujino dadka aan u sheegno runtii inay guurkii ay raqiis ka dhigaan sidan haddaba aan sameynayno laakiin mustaqbalka haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu raali ka ahaado waxaan isku dayaynaa bal inaan arrimo kaloo cusub ama nidaam cusub oo guurka ah inaan runtii la nimaadno anagoo dhalinyarada dabcan la kaashanayna مثلا tusaale ahaan waxaan ku soo qaadi karaa Suudaan oo kaleeto waxa marmar qaar ay dadku bilaabeen 30 wiil iyo 30 gabdhood hal habeen in la isku daro oo marka laakiin neefka kaliya meesha lagu wada qasho meesha maaragtay kuraasto la dhigto halko xaflad la wada hagaajiyo meesha nin walba gabadhiisa uu halko gaari ku qaato
يعني waa 30 qof way marka taasna marka waxay ku tuqanaysaa mass marriage waxa la yiraahdo runtii hadii ay dhalinyaradeenu kari karaan associationadooda yar yarka oo ayaga ay leeyihiin oo hoose dhalinyarada marka inaan mass marriage kaas aan ku dhiirigelino 5 7 8 hal maalin inay arooskooda dhameystaan 7 kale in maalintoo la isku daro waayo qarashkiisa qofka kaligiis kama bixi karaa si collective oo wadajir ah marka in loo sameeyo mustaqbalka waxay ka mid tahay waxyaabaha runtii hadaan culimada nahay aan ku dhiirigelinayno dhalinyarada ururadan yar yar ee dhalinyaradu ay leeyihiin aan leenahay talaabada iyada ah bilaaba idinka si ay u noqoto marka talaaba looga gudbi karo guurkan hadda nahaaya ee qaaliga ah haddaba su'aashan la isweydiin karo ayaa ah ilaa goormay soconi doontaa dhagarta noocan ah imisa rag ayaa ilaa iyo hadda dabintani loo dhigay ma tahay xilligii ay qaybaha kale ee bulshada u xusul duuban lahaayeen sidii loo dabargoyn lahaa khiyaanada madowga dhex dhigtay qoysas badan oo Soomaaliyeed